عبد الرحمن عبد الشكور وعبد عيني عاقل طريق وعليا مسوكني وعليا مسوكني وعليا مسوكني baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo xubnaha aqalka sare guddoonka oo aan ka bilaabay salaanta intaba mudayaan ee marwooyin dalkeena wuxuu marayaa marxalad abaar aad u culus ee haysato dadka Soomaaliyeed in ka badan 1,300,000 oo Soomaaliyeed ayaa waxay u yihiin maanta hoos joogan geed abaareed hoos harsanaya marka waxaan ilaahay ka rajaynayaa in uu abaarta naga saaro dhammaanteen inaan u gurmano aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa guddoonka baarlamaanka oo ku wareejiyay guddiga abaaraha lacagtii mashruuciinta niskood waxaan kaloo rabaa inaan ka dhawaajiyo aadna u soo dhaweeyo go'aankii daraad ka soo baxay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee ku saabsanaa xukunka la xiriira go'aan qaadashada ama xukun qaadista la xiriirta muranka noo dhaxeeya annaga iyo dowladda Kenya waxaan aad iyo aad hoosta uga xariiqayaa in maxkamaddu ay ictimaaday oo ay go'aankeeda ku dhistay isafagaradkii 2009kii aan saxiixnay Soomaaliyana maanta u noqday nafta kaliya ee maxkamadda la horgeeyo kaasoo ay ku mudan yahay sida xeelaliyaha qaranka Soomaaliyeed oo sheegay dadkii hawshaas galay ee sharaf iyo karaamo ku mudan yihiin waxaase wax aad looga xumaada ah in musharaxiinta qaar ay isku dayeen inay ka kalluumaystaan biyo calow arrintaas la xiriira waxaan rabaa inaan gudo galo barnaamijkayga siyaasadeed intaana gudo gelin dabcan barnaamijkayga waxaa la yidhaha isku tashi aad ayaan u faafiyey intii aan kambeyn ku jiray 9 bilood la soo dhaafay dhammaantiina gacanta ayaa ku wada haysataan isku tashi waxa way aan isku tashano maxaa igu dhaliyay isku tashi aan rabaa inaan ka jawaabo ee sababta keentay haddii aan ummad muslimaan haddaan u noqono quraankeena kariimka ah aayad quraan waxaa ku jirta aad u xoog saaraysa isku tashiga halkaas ayaana ka soo dhiraandhiriyay falsafada isku tashi aayadaas aan rabaa inaan la wadaago aayadda waxay ka hadlaysaa nin boqor oo la dalqarnayn oo asagoo musaafir oo socda ayuu wuxuu ku soo baxay qolo ay ka kala daadsan tahay ka tabaalaysan tahay ka taalo sideen oo kale markaas waxay weydiisteen in ilaahay ay ka magan galaan asagana uu ku caawiyo in ay sad u dhisaan in yaajuuj wa maajuuj waxay dhahay mufsiduuna fil ardi فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا من كان يأجوج وماجوج تاد نوغدي سيكودهن وحلالي وحربتنا عن كسين وقرشة وقال قرش كي هيستا هنتدي هيستا وحول با هيستا لكن يكود عليه قال الآن أسجن محوق جوابي قال ما مكني فيه ربي خير إلهي وحو إسيو إمكانيي أي إيجا خير بدن فاعينوني بقوة أود يقول ساعدة إذنك علماء markii waxay dhaheen quraanka fasira dalqarnayn qolada uu caawiyay waxba kuma soo kordhin aan hogaan ahayn aatuni zubr alhadid ku dhahay ii keena zubr alhadidka aatuni waxa keenayna waa ayaga zubrka hadidka waxa haystana waa ayaga hatta idha sawa bayna sadafayn wuxuu dhahay khalan fuqu afufa waxa afufayana waa ayaga hatta aatuni ufriq alayhi qitran ii keeno yiri ayadoo dhibdhibicayso gubanaysa aan ku shubay waxa soo dhan sameeyay oo tilaabta qaaday oo zuburka haysta oo awoodda haysta ee xadiidka haysta waxay ahaayeen qolada u yimid laakiin asaga waxa uu keenay kaliya hogaan waxa maanta aan meeshaan u taaganahay aniga rag ila midka waa hogaanka dalka diinteena hogaanka dalka waxay u leedahay marjic iyo reference ay u leedahay hada ka hor nabi yuusuf ayir ij'alni ala khasaa'il al-ardi inni hafidun alim waxa sheegtay laba sifood oo ah waxna waa xifdiya aqoonna waa leeyahay macnaheedu amaano iyo xifdi labadaba waa leeyahay ayuu sheegtay gabadhiina waxay tiri markii aabeel hadlaysay nabi muuse ka waramaysa waxay tiri istajirhu in khayra man istajarta alqawiy alamin laakiin midka uu yaa ka badan wuxuu yahay boqoradii saba ee xukumi jirtay Yemen waxaan aad ugu xumahay 24ka musharax ee tartamaya inaysan gabar ku jirin laakiin adduunkan hablo cadiim ah oo soo hogaamiya jiro oo diinta islaamtan ay ka warameen markaas waxay ku tiri ayadoo qolada la tashanaysa markii loo sheegay in nabi Suleymaan iyo mulkigiisa uu ku soo socdo ayay waxay tiri ma kuntu qaadi'atan amran ya ayuha al-malaw aftuni fi amri ma kuntu qaadi'atan amran hatta tashhadun
waxay tiri ii fadwooda go-aan idinka la-aantiin ma qaateen waxay la tashanaysa dadkeeda tala wadaag taladay dhexda dhigtay waxay tiri maa kuntu qaadicatan amran xataa tashhaduun idinka waxay tiri ii warrama go-aan ma qaata idinka la-aantiin marka qur-aanku naftiisa waa leeyahay wax ku salaysan arrintaas iyada ah waxaa kaloo kasii mucjiso badan nabi suleymaan boqor uu ahaa mulki ilaahay siiyey maalin buu wuxuu waayey hudhudkiiu waayey hudhud shimbir la yidhaha markaasuu wuxuu yidhi maaliya laa ara hudhuda am kaana min alghaa'ibiin war ninkii hudhudkahay maxaa ku dhaco yidhi hudhudkii meel yar buu ku dhuuntay intuu soo baxo wuxuu ku yidhi axadtu bimaa lam tuxid bihi waji'tuka bisaba'in min naba'in yaqiin waxaa adiga garani waa ninkii boqortooyada ilaahay intaas la egsiiyey wuxuu yidhi waxaadan ka warhayn baan ka soo war helay oo waxaan arkay naag saba la yidhaahdo dhul dhan xukuntaan soo arkay nabiga isma waalin wuxuu yidhi bal ii waran hudhudow warki isii macnihii maxay kutusinaysaa nin mulki iyo nebinimo ilaahay siiyey oo shimbir wax ka dhagaysanaya macnihi inaad awood haddaad hayso diintii waxay kutusaysaa inaadan ku takrifalin dadkana aadan xaqirinin oodan ka dhagaysan oodan yaraysanin nabi muuse markuu yajcalnii wasiiran min ahli haaruuna akhii haaruun oo wasiir iga dhigo yidhi walaalkay ah ilaahay waa weydiiyey sababou dha huwa afsaxu minii lisaanan uu yidhi waa iga fasaaxad badan yahay macnaheedu waxaa waa karti aniga aan haysan oo haystaa waayo madaxdeenna waxaa lagu arkay kuka karti liita keliyay rabaan diintana waxayna leedahay mid kaa karti badan raadso yaa qaatay taas dimuqraadiyadda galbeedka oo maanta u haqaltaagaynaa qaadatay nin madaxweynaha ama prime ministera way adag tahay inuu xaafiiskiisa ka qoro nin asaga ka liita inuu ka qoro waa adag tahay sababtoo accountability iyo xisaabtana u taagan mudanayaal iyo marwooyin dowlad markaan fasirayno waxaan idhahdaa soomaha ama qaran markaan sheegayno waa la isdhexgeliyaa inta badan waa dal iyo dad iyo xukun waxaan rabaa inaan ka hadlo xukunkii xukunkana waa labo xukunka waa sovereignty-ga waa siyaadada maanta waxaan rabaa inaan si saraaxal inla wadaago aan in weydiiyo ma haynaa annaga siyaado aan madax bannaaniin ma nahay qaran madax bannaan haddaan Soomaali nahay su-aasha meesha taalo waa taasa madax bannaanidana labaa loo qaybiyaa mid gudaha ah oo dawladdu inay leedahay legitimate monopolies of violence wax la yiraahdo awoodda dawladnimo inay gacanta ku haysato oo ay ciidanka nabadgelyada iyo booliiska ay shaqaynayaan oo maxkamadaha ay shaqaynayaan oo dawladda amarkeeda oo hirgelayay soconaya ma haysana madax bannaanidu waa mid dibadeed oo inaan xuduudaheena ka difaacana cadowga territorial integrity-ga Soomaaliya la ilaaliyaa midnimadeeda la ilaaliyaa cirka iyo badda iyo dhulkaba laga difaacaa ma haysana ciidankaas maya amisom waa runta inii sheegaya dhammaanteen waa ognahay xuduudaheena amisom ilaalisa madax bannaanideedana amisom ilaalisa labadaas ma haysano waxaan rabaa inaan runta maanta aan isku sheegno aan isku warano si aan meesha aan joogna uga guurno aan meel kale u tagno madax bannaanideena ama sovereignty-geena maanta anaga gacanta looguma jirto taasaa keentay inaan dhammaanteen markaan isqabanno aan xalano u kala dacwoono waan joogi jiray xalane sanad iyo baran ka shaqeynay la taliyo waxa labada nin ee meesha soo martay madaxda ka UN-ka halkaaba loo soo wada dacwoodaa halka loo soo aroro waa halkaas inay madaxda ka warqabtaan u maleynaya sababtoo ah gacanta kuma haysano awoodeeni iyo madax bannaanideeni midna waan dayacanahay haddaana madax bannaanidii haynina marka dawladnimadii weli gacanta kuma hayno laakiin wadadeedii aan haynaa maxaa keenay dawladnimada inaan gacanta ku haynin madax bannaanidii ama siyaadadii qaran ama sovereignty-gii way qaybsan tahay qayb Jubbaland ay taala qayb Puntland ay taala qayb Galmudug ay taala qayb Hirshabelle ay taala qayb Xamar ay taala iyo baarlamaanka awoodda iyo siyaadadu way qaybsan tahay ma kari karnaa inaan awood dawladda inta yeelano aan siyaadada iyo sovereignty-ga soo celino hal meel isugu keeno waa kari weyne 12 sano dawladda ku meergarka lisay waxaa la yiri hal wada hadal badalkeedii waxaa la yiri wada hadal hal lagu keeno hal lagu soo celiyo sovereignty-ga ama siyaadadii qaran waxay u baahan tahay waa run in wada hadal lagu soo celiyo u baahan tahay maadaama dawlad awood leh oo siyaadadii iyo qarannimadii hanantaa meesha aysan joogin maxaa badalkeedii yimaaday hal wada hadal siyaado si loo keeno waxaana kaloo haysanin ciidankeena amniga qaranka waa ka xumahay taliyaasha inay joogaan laba sugidii iyo booliiskii intaba iyo militariga intaba ilaa hadda ciidankeena masruufkiisa waxaa bixiya dad shisheeye indhahana ka qarsanaa waa ognahay mishaarkiisa shisheeyaha laga sugaa ma dhici kartaa naba sugiddeena haddii mishaarkeeda shisheeye ka sugayso oo taageeradeena shisheeye ka sugayso oo dhaqaalaheeda shisheeye ka sugayso inay naba sugid qaran noqoto ma dhici kartaa ma dhici karto sida kaliya ay ku imaan kartaana waxa waaye inaan annaga hanano ma bixi karnaa mishaarka naba sugidda waa bixi karnaa bal fiiri miisaaniyadda la soo hor dhigay sanadkii hor 2006
iyo madii sida ku meel gaarka loo keenay nabad sugidda Soomaaliya intay ku leedahay fiiri ciidanka xoogga dalka Soomaaliya intuu ku leeyahay fiiri miisaaniyadda booliska Soomaaliya intuu ku leeyahay miisaaniyadda fiiri naashi bacali hadda ka horgabiyo wuxuu yiri Mareykanka waxa qaramadii midoobay waxa eriyay qalin Mareykanmaatihiin markaas ii soo jawaabay waxay dhaheen masruufka maamulka oo baxshaaho ma hal looga maarmeeyo ninka masruufka bixiya ayaa maamulkan looga maarmeeyo wax cad wa hadaa marka rabno inaan wajahno xaqiiqada dhabta ah waa inaan taas ku wajahnaa mudaha iyo marwooyin qodobka saddexaad oo meesha yaalo waxay tahay baarlamaankeena kii sagaalaad iyo kii tobnaad iyo kii ka horreeyay dhaqankiisii wali waa isku mid haddii sida loo falgelayo siyaasadda sida loo maamulayo hanaanka siyaasadeed sida wax loo yeelayo dhammaantood waa isku hal waxaan u haysanaa waxa sababtaas keenana waxay tahay inaysan ahayn organized politics wixii la dhahayo siyaasad sideedaba waa danta guud oo la maareeyo annagana dantii guud nooma nidaamsana 276 iyo 54 hadda ku soo biirtay qof walba wuxuu ku joogaa individual capacity macnaheedu shakhsigiisa oo baarlamaanka ugu jira ma matalo xisbi siyaasadeed ma matalo group siyaasadeed ma matalo ideology siyaasadeed ma matalo dan siyaasadeed haddana siyaasadda la organize gareynina way adkaanaysaa inay siyaasadda macno yeelato waxay ku wareegi doontaa intii meel ku wareegi jirto ah madaxtooyada xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo baarlamaanka intaas bay ku wareegi doontaa ma fidi doonto awoodda siyaasadeed siyaasadna ma socon doonto halkaas ay ku xayirnaa doontaa arinta siyaasadda qodobka saddexaad wuxuu aan rabay inaan taabto barnaamijka isku tashi waad haysataan qodobada ayagoo qoran ay ku jiraan laakiin anigu waan kor marayaa kaliya waxay tahay waa arrimaha dibadda Soomaaliya waxay ku taalaa meel muhiim ah adduunkana muhiim u ah laakiin waxaad moodaa hadda inay ahmiyaddeeda soo baxayso waxaadna aad u sii ogaanaysaa markaad tiraa xilka madaxweynaha rabaa Soomaaliya bal dadka Soomaaliya daneeya ee maqlaysaan in inta madaxdii la wado dibadda la geynayo la weydiinayo joyskooda madaxweynimo inta la isaga yeerayo xagga la iska wacayo interview la iska qaadayo in kama qarsana waa ogtihiin waxa keenaya maxaa waaye siyaasadda bariga dhexe ee markasta siyaasadda gobolkan ee geeska Afrika ku xiranta siyaasaddii gobolkii dhexe waxay noqotay mid la isaga baxay awoodii siyaasadeed ee garantoorka ka ahayd ee daaminka ka ahayd ee bariga dhexe siyaasadeeda ku dhisneed dawladda Mareykanka dawladda Mareykanka ayadaa go'aansatay inay si tartiib ah uga siibato bariga dhexe marka xoogag tartamaya ka soo baxay oo Iiraan weyn tahay Turki dhinac taagan tahay Sacuudi oo la sunniga islaamka hogaaminaya iyo wixii raacsan iyo wixii lamid ah tartankaas ka jira bariga dhexe wuxuu ku soo dhacow ku soo gadoomay geeska Afrika ayada oo walba geeska Afrika oo kamid ahaa meelaha ugu xasaradaha badan gobolka adduunka ugu xasaradaha badan saddex meel la sheegaa waa halkan geeska Afrika anaga aan deganahay Balkaniska iyo bariga dhexe tartankii wuxuu keenay in lagu tartamo Soomaaliya in kama qarsana inta dawladda rabta inay Soomaaliya military base ka hesho ama military meel saldhig military ka hesho ma qarsana loolanka taagan ma qarsana dawladaha jaarka ee sida qaawan ugu tartamaya doorashada Soomaaliya mid qarsan maaha laakiin maxaan u baahanaa haddii Sacuudi iyo Iiraan iyo Turki iyo Qatar iyo Ethiopia iyo Kenya iyo Masar iyo dawladaha gobolka dhow iyo gobolka fog oo dhan ay ku tartamayaan awoodda Soomaaliya ay ku tartamayaan iyo qof walba inuu Soomaaliya ka helo meel oo salka dhigo waxaan u baahanahay hogaamiyaha marxaladda soo socda imaa doona inuu noqdo hogaamiye liisa furan yihiin inuu noqdo hogaamiye miisaami kara geopolitics-ka lagu hareeraysan hogaamiye ka warqaba loolanka siyaasadeed ee gobolka dhow kan dhexe iyo ka fog ka dhaxeeya ee Soomaaliya ku jihaysan ma aha hogaamiye meeshii looga yeedhay dhagtiisa maqlay ma aha hogaamiye qariska tuur inuu noqdo oo qariska tuurnimada waa wixii diiray diblomaasiyadda Soomaaliya 60 sano la soo dhaafay mana aha hogaamiye inuu noqdo iska hiiraacayo oo meeshii looga yeero farta looga fiiqi tagayo ma iyo waxa la wixii saxiix la yiraahdana qalin ku jiidayo wuxuu u baahan yahay hogaamiye isku miisaami kara danaha kala duwan ee gobolka iyo midda adduunka isku miisaami kara inuu yahay ayaa loo baahan yahay waxaan u haysanaa mudan yahay marwooyin haddaan u soo noqdo qodobka ugu muhiimsan waa u dawo mariyay laakiin waa midka koowaad ugu muhiimsan waa xasiloonida siyaasadeed xasilooni siyaasadeed saan ku heli karnaa annaga Soomaali haddaana waxaan isku haynaa siyaasadda musharax kastana waa ka dhawaajiyay laakiin siyaasadii hadda waan gabalaynay
iyadoo gobol ayaan goobo kala duwan ku haysanaa waana isku jaalin jeergaraynaa oo jiqaan isaga dhignaa markaan rabno see lagu keeni karaa taas ayaa muhiimadda ay tahay waxaa lagu keeni karaa in la dhiso nidaam siyaasadeed heshiis lagu yahay sida aad la socotaan dastuurka kumeel gaarka ah hal qodob lagama taaban qabiilkiisii waddankan wax walba qabiyo waaye inaad la socotaan waaye waddanka wax walba waa qabiyo dastuurkii weli lama qabiyo tirin awoodaha siyaasadeed u dhaxeeya maamul goboleedka iyo dawladda dhexe waxaa sheegaya dastuurka maamul goboleedyada waxaan ognahay inay ku dhismeen hanaan siyaasadeed iyo waaqic siyaasadeed laakiin sharci baarlamaankan ansixiyey kuma dhismin dhammaanteen waa ognahay ma laha waxa la yidhaahdo legality framework ama constitutional mandate ay haystaan ma jiro waxay u baahan yihiin hadda ka bacdi inay yeeshaan waxay u baahan yihiin in gradual process wax looga baxaayo kumeelgaarnimada dowlad goboleedka in la sameeyo indhaha aan kala furno oo ay gaaraan dowlad goboleed buuxda oo shuruudihii dastuurka uu siiyey ay yeeshaan waxay u baahan tahay in laga wada hadlo waxaan u baahannahay nidaamka xisbiyada badan inaan keenno si siyaasad xisbi iyo fikri ideology ku dhisan ay u noqoto oo aan ka baxno siyaasadda qabiilka iyo in adeernimada iyo tolaysiga aan ka baxno oo adduunka oo waa hore ka tegay qodobka saddexaad aan u baahannahay waxaa waaye inaan dib u eegno mar kale oo si dhaba aan u fiirino nidaamka federaalka ah oo haddeertaan annaga waddanka aan ku keennay wuxuu ku yimid heshiis siyaasadeed wuxuu u baahan yahay inuu u dego heshiis bulsho inuu noqdo arrintaas mar kale aan hoosta ka xariiqaya nidaamka federaalka wuxuu ku yimid heshiis siyaasadeed wuxuu u baahan yahay inuu u dego heshiis bulsho iyo heshiis dastuuri inuu noqdo u baahan yahay waa laga maarmaa arrintaas maxaan annaga marka isku tashi aan haddaan nahay maxaan haynaa hoon soo bandhigaynaa waxaan aaminsannahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed marka lagu daro nabad sugidda marka lagu daro booliska marka lagu daro ciidamada kale ee asluubta kulli iyo marka lagu daro amisom intaba 50 kun kore u dhaafsan yihiin 50 kun oo ciidanaha waddankan joogta waxaan ognahay 50kaas kun oo ciidanka ah in aysan weli ammaankiina soo celin xasiloonina keenin kala dambeyntii sharcigiina aysan keenin maxaa ka qaldan marka aniga ma rabo inaan wucuud baana inta inii sheego yiraahdo saasaan yeelayaa iyo xaggaan dhisayaa sababtoo ah dowladnimadu waxna waa base waa arkaanta ay ku taaganta waxna waa dowladda markay dhisanto waxa la rabo inay qabato inayna seekay qadamaan ma dowladnimada afar arrin ay ku taagantahay haddaan la helin wax ma qaban karto caafimaadna wax kama qaban karto waxbarashana wax kama qaban karto jidadna ma dhisi karto dhaqaalena ma abuuri karto haddayna arkaanteeda afartaa iyada ay ku taagan tahay marka hore aan la taagin afartaas rugni maxay yihiin waa amniga daakhiliga waa inaa ciidankeedii booliska iyo nabad sugidda iyo nabadgelyada iyo maxkamadaha ay dhisan yihiin oo dowladdu ay leedahay awood ay sharciga ku meel mariso canshuurna ay ku qaadan karto ciidankeeda qaranka inuu dhisan yahay oo siyaadada iyo madax bannaanida qaranka u ilaaliyo ayaa loo baahan yahay dunida hadda aan ku noolnahay carabta waxaa la yidhaahdaa laba dowlad keliya iyo bariga dhexe oo dhan isku dar laba dowlad keliya dowlad ka ah waa Egypt iyo Tunisia sababta u yihiin maxaa waaye rejiimka wuu isbedelaa laakiin dowladdu way taagantay midda labaad waa maxay qodobka labaad waxaa waaye inaan helno bureaucracy-gii shaqaynayo maamulkii dowliga ah waad ogtihiin hadda warqad xafiis ka baxdo oo xafiis kale ku dhamaata waxaan ku ammaanayaa waxaa ugu roon guddoonka baarlamaanka runtii ma horteeda inay fadhiyaan laakiin inta kale physical communication is arag shakhsiga lagu wada shaqeeya prime ministerka madaxweynaha wasiirada ra'iisul wasaaraha madaxweynaha waxa kulamada tirada badan ay u socdaan waxa waaye bureaucracy aan shaqeynaynin macnaheedu bureaucracy dowladeed aan shaqeynaynin taasna waa rugniga labaad ee dowladdu inay ku istaagto loo baahan yahay waa ciidan amni daakhili waa ciidan khaarijiyo ilaaliya sovereignty-geeda ciidankii qaranka ilaaliya madax bannaanideeda waa bureaucracy inay dhisan yihiin justice cadaaladii markaa fiiriso miisaaniyadda budgetka cadaaladdu waa meesha ugu dhaqaalo yar xaafiis kastaa ka dhaqaalo badan cadaaladdu waxaana sugaynaa garsoor inaan dhisno way adag tahay garsoorkaas inuu dhismo aad u adag tahay maxaa marka ciidankaas soomaaliyeed inuu dhismo hortaagan dhowr qodob aan annaga sheegnay aragti la'aan mudnaansiinta dhismaha iyo maalgelinta ciidankii qalabka sida is-afgarad siyaasadeed oo aan ka dhex jirin dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada qaabka baaxadda hanaanka sharci ee ciidanka xoogga dalka uu yeelanayo maamul goboleedyada wax badan aan ka ogaaday intaan ka shaqaynayay dhinaca kale United Nationka markaa la kulanto runta gaaladay u sheegaan Soomaalidu iskuma sheegaan waxaa la aaminsan yahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iga raadaa taliyihiisa meeshaan uu joogo
inuu yahay ciidan beeleed maamul goboleed saasi aaminsan yihiin mana ka qariyaan ajnabiga see looga saari karaa ciidan beeleed oo u noqon kara ciidan muunad qaran midda ugu muhiimsan waa midaas waxaasoo dhan marka maxaa asal u ah ciidankan tirada badan ee 50 kun oo haysana oo amisom 5 dowladood ka joogaan ugu yaraan waxaa lagu leeyahay 6 dowladood oo mishaarkiisa bixisa iyo 2 hay-adood iyo ciidankan tirada badan ee Soomaaliya saddex yaacsan maxay wax u qabilaayeen halka aan rabo inaan gundhiga ka dhigo waa halka waxay wax u qabilaayeen hal waxa maqan waa accountability waa isla xisaabtanka yaa asaas u ah baarlamaanku muxuu u xisaabtamilayaa parliamentarian ah jiray xanuunkeeda ogahay wasiir aan noqday xanuunkeeda ogahay anoo wasiir oo 10 bilood mishaar qaadana waa arkay anoo xildhibaan oo 9 bilood mishaar qaadana waa arkay kuwa hadda ku jira baarlamaankana 9 bilood mishaar ma qaadan waxa xaqiiqo jirta xildhibaanku muxuu u shaqeeylayaa experience yaa idin sheega idinkana waa ogtii waa in xasuusinaa kaliya wuxuu u shaqeeylayaa arabta waxay tiraahdaa jawic kalbak mudiica eygaaga gaajaysi ha ku adeecay xildhibaan qaran oo mishaarkiisii isragal ku jira oo subaxii markuu soo kaco raadinayo meeshuu lacag ka heli lahaa noloshiisa ku dabari lahaa hotel ku xaniman oo ninka hotelka iska leeyahay bishii waa dhamaatay 3 kun ee hoteelada ugu yar magaalada 3 kun lagu degan yahay mishaarkiina waa 3 kun 3 kunada kirida hay keen jidka shabaab u taagan yahay ama dhagxaan askartii taagneed isku aamin weynaan madaxtooyadii askar jiifta hor dhoobnay oo baabuurka markaa maray saacada ku soconaysa askartii taagneeda shaqay weysay kuwii jiifaa naf gadiya oo jiifina askartii nooleeda shaqay weysay dhagaxaantii aan amni ka dhignay ma dhagaxa amni noqonay al-shabaab ma aha awood siyaasadeed waddankan ka jirta awood ciidan ma laha al-shabaab waxay ku nool yihiin grievance waxay ku nool yihiin annaga cudurada noo dhaxaysay ku nool yihiin al-shabaab iskama hor keenaan maamul goboleedka dowladda dhexe al-shabaab iskama hor keenaan beelaha Soomaaliyeed al-shabaab iskama hor keenaan dowladda iyo dowladaha dariska al-shabaab iskama hor keenaan dowladda iyo beesha caalamka annaga waxa is haysta al-shabaab way dhex kaluumaystaan kaliya marka waxaan rabaa parliamentarianka waxaa inii ballan qaadaya hadda talada xukunka aad siisay idinkay gacantiina ku jirtaa kuma jirto gacan ajnabi kuma jirto gacan kaleeto inuu baarlamaanka base u noqdo accountability soo uu noqon kara laba arrin oo mudnaan aan sii doono ta koowaad baarlamaanka inuu xuquuqdiisa iyo gulooyinkiisa helo hadday tahay mid mishaar hadday tahay mid caafimaad hadday tahay mid amni oo ka madax banaanaa karo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha xildhibaanaan soo ahay mar kale aan ku celinaa wasiiraan soo ahay haddaa caafimaad u baahato waa inaa ayaga u tagtaa haddaad ammaan u baahan tahay waa inaa ayaga u tagtaa haddaad wax yar oo dadka tabaalaysa inaad ku dabartaa u baahan tahay waa inaa ayaga u raadisaa xildhibaanada idinka in kala mid oo kuwa dowladaha dariskaana waxay leeyihiin xafiisyo shaqaale gundooyin constituency funding wax la yiraahdo keeyadaas nagu dhow xildhibaanku wuxuu leeyahay $100,000 constituency funding oo constituency wax uga qabto wuxuu leeyahay shaqaale staff wuxuu leeyahay xafiis wuxuu leeyahay bishaar $120,000 oo sanadkii qaato ku filan markaas ummadiisa wax u qaban kara laakiin shacabka Soomaaliyeed idinku weeyadaya xildhibaanada waa xun yihiin mooshan ay ka shaqeeyaan wax kale ma qabtaan idinkana waa la gabay yaa in gabay executive wuxuu in gabayaa in la xisaabtantaan u diideen wax kale ma qodobka labaad maxay tahay baarlamaanku ku shaqeyn karaa waa inaan organize gareynaa siyaasadda oo nidaamsan oo nidaamino kaliya ayaan ku nidaamin karnaa waxaan rabaa qodobka ugu dambeeya oo taabanay inuu yahay qodobka musuqmaasuqa iga raali ahaada musuqmaasuqa aad looga hadlay waa mid ka ragaadiyay dowladnimadeena musuqmaasuqa muxuu yahay marka musuqmaasuq waa laba nooc musuqmaasuq askartan masaakiinta iyo shaqaalaha dowladda rankiga dhexe iyo kuwa xafiisyada jooga ay ka shaqeeyaan oo ay danaha markay fududeynayaan mishaarkooda qaataan wax yarka khidmada ay dadka qaataan lagu magacaabo musuqmaasuqna muxuu yahay musuqmaasuqna waxa waaye midka siyaasadeed soo u yahay mid siyaasadeed wuxuu u yahay hadday koox xukunka qabsato oo isku daydo intay is abaabusho ama magac diineed ha yeelato ama magac siyaasadeed ha yeelato inay ayaga awoodda la wareegaan musuqmaasuq khatarta kaas waana mid hadda jirta waddanka waxaa la review gareeyay 11 contract guddiga madaxa bannaan ee Soomaali iyo international ay ku wada jiraan kulligood hal lagu noqdaa mid lagu noqdo ma jiro kulli waxa lagu naasnuujiyay dad qaraabo ah ama dad ehel lagu naasnuujiyay dhamaantood waa la soconaa waxaan kaloo ognahay in la sameeyay
oo la yiri dib ha loo fiiriyo kontraatiyadaasi waxaas oo dhan hadday tahay arrimaha oo waxaas oo dhan ay ku hoos jiraan waxaa kamida sida canshuuraha guryaha canshuuraha shatiyada tarismataalaha istiikarada fiisooyinka leysanka baabuurta daabacadda baasaboorka naafada maaragtay nadiifinta caasimadda taargada baabuurta khidmada jidadka laga qaado la yiraahdo meelaha ku yaala intaasoo dhan waxaasoo dhan dadaa lagu naasloojiyey intii kalena martiyay ka tahay maxaa keenay waxa la isku dilaya waa taas haddii awoodda dowladda koox ama qabiil isku dayaan inay danahooda gaarka u isticmaalaan waxaa imaanaya in ay dhibaato ka timaado dadka kalena ay ka jawaabaan waana waxa dowladdeenu yirido meesha dhigi taasa u baahan markii in laga hortago mudanayaal iyo marwooyin waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo oo faataxadana ay la martaan 19 xildhibaan oo iyankii ka tirsan oo la dilay oo dayac ku dhintay oo cid baartan aysan jirin agoontoodii qaarkoodan ka shaqeeya inaan wax siiyo cid daryeeshana ma jirto masiirkaas waa inuu sugayaa qabiilada la dhamaystiraya hadday taas tahayna idinkaa inii daynaya 19 xildhibaan 45 sargaal iyo saxafi meedkooda waa laga talaabsaday lama hayo maanta meelay jiraan haddii taas la dhamaystirayna waa arrin kaleeto haddii muwaadinka Soomaaliyeed ee miskiinka ah ee baska inta jidka loo dhigtay la leeyahay $7 ama $11 bixi xamaaliga ee laboorkii joogane hadduu oo boorso dhabarku u soo qaado 2.5 dhibic laga qaadanayana hadday tahay dhamaystirkani taas waa ayaan daro waxaa aad iyo aad u xanuun badan in 19kaas xildhibaan cid wax ka soo qaadaysan jirin cid maanta dan kalena aysan jirin ilmahoodiina cid meel ku og jirin xuquuqdoodiina qof raadinaysa aysan jirin masiirkaas waa inaa ogaataan dalalkaas galbeedka ah waxay ugu dagaalamayaan xuquuqda qofka refujiiga ee Soomaaliga ama madow ama muslimka maxay tahay ma inay jecel yihiin waxay ku shaqeeyaan inaan darbigooda loo soo gelin darbigooda in loo soo gelin waxaad la socotaan Sacuudiga inay isku qabteen Ingiriiska nin la yiraahdo Mas'ari oo ahaa mucaarad dhiliya yamaama jiray oo markuu John Major madaxda ahaa $22 bilyan oo ah dhilkaas oo hub u kala iibsanayeen Sacuudiga iyo dawladda Ingiriiska Sacuudiga waxay dhahaan haddaad rabtaan 22 bilyan inay yamaama dhil aan ku iibsano waa inaa Mas'ari oo mucaarada gacanta noo soo gelisaan John Major wasaaradda arrimaha gudaha waxay isku dayday inay gacanta u geliso laakiin waxaan halkan u soo xiganayaa qaadiga Ingiriiska wuxuu dhahay oo diiday inuu Mas'ari gacan geliyo wuxuu ku yiri ninkii cigaal kale hadduu maanta ninkaas lacag ku iibsado bari aan ugu iibsanaya u dhahay Mas'ari waa joogaya xuquuqda waxa la siinayaa lujuuga ama maaragtay maangelyadana waa haysanaya halkaas waxa ku kansalmay 22 bilyan oo dhamaama dhiil ah because inuu ninkaas arabka ee Sacuudiga ee baxsadka ee mucaaradka xuquuqdiisa helo qaadiga Ingiriiska wuxuu ku ilaalinayay ma ahayn Mas'ari inuu daneynay wuxuu ilaalinayay tiisa dadkaas xuquuqda ilaali lahaa oo muwaadiniin Soomaali maanta ay sugayaan oo ay soo fiirinayaan oo ay dhowranayaan rajo Soomaali u dhimano idinkii ay maanta ma jirto maalinta aad codka ridaysaan ilaahay waa hortaagan yahay dhaartiinina waa in eegaysaa waxaan ka codsanayaa ballanqaadka aan sameeyay in aan ii ballanqaado waxaan in ka baryayaa in ka codsanayaa inaad codka isiisaan baarlamaanka doorashadiisa ay ku timid waan ogeyn waxay ahayd buuq badanaa ka jiray adduunka cabasho badan oo ka muujiyay waxaan ka shaqeyn doonaa inaan ictiraafka dawladdan tii ay heshay 2012 oo lumiyay fursadaas inaan mar kale soo celiyo oo aan wada shaqeynta beesha caalamka aan ka shaqeeyo dawladda ictiraafsan yahay baarlamaan la ictiraafsan yahay oo mugga ictiraafka kii 2012 la inaan keeno natiijada ka soo baxdayna ku xiran tahay inuu tii hore noqonayso iyo inay mid ayada ka duwan noqonaysana waxay ku xiran tahay natiijada ictiraafka mar kale waxaan ka codsanayaa inaad codkiina isiisaan waxaana ka shaqeyn doonaa baarlamaan sharaf leh oo karaamo leh oo dadnimo leh oo xuquuqdiisa haysta inuu wadanka ka yimaado taas markay dhacdaa dawladnimo Soomaaliyeed koow ah because baarlamaanka asal ah dawladnimadan laakiin inta baarlamaanka la rabo in lagu maamusho maaragtay nafjeclaysi iyo shaxaad iyo wax maalin la siiyo iyo xuquuqdooda loo diido dawladnimo ma dhawa maanta gacantiina ku jirtaa dawladnimadii Soomaaliya bilowgeedii iyo dhamaadkeedii maanta idinka haya waxaan rajaynayaa in arrintaas aad yeeli doontaan waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum عبد الرحمن